بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan idin ahaan badadkana dhageysanayo sida aad u dhantihiin annaka oo idin jecel iyo adika oo noo hamuun qaba kuna soo dhawaada sheekadii dhimaleha ooyin qaybtiidii koowaad sheekadu waa qiso jacayl oo dhab ah oo aad u dhib badan damiirka qafno aanu qaateen dhacdooyinka murugada leh ee ku dhex jira qaybaha dambe ee sheekada waxaad ku maqli doontaan waraysi lala yeeshay wiilka sheekadan ay ku dhacday sheekada waxaa qoray abwaanka weyn mukhtaar cabdi sheekh bulshaawi soo saaraha sheekada waa cabdisamed maxamuud saciid kaka anigoo yuusuf garaad macalin ayaa idila socodsiinaya kuna soo dhawaada mar kale iyo qaybtii koowaad ee sheekadii halkudhigeedu ahaa dhimaleha ooyin naasir waa wiil da'yar oo ku soo barbaaray miyiga waxa uuna jecel yahay inuu mar uun magaalo tago arrinkaasi ayaana qalbigiisa ku taagan habeeniya maalin inankii naasir ahaa waxa uu maanta joogaa xaafadda saaxiibkii haaruun ayaa la yaaban isrogroga badan ee naasir waxaana dhex maray sheekadan hurdadii meeday waa maxay isroragan faraha badani ileen xusuustu macaana marka aad soo xusuusato nolol hore ayaa saaxiib haaruunoo hurdaba xalay maana arag ma aanan soo jeedin maanan hurdin mariyaa mise waa dhab waa yaab maxaa ii xusuusiyey mar hore ayaa igu dambaysayaan ilaawe maxaa xusuusiyey waxaa fallaadha wadnahayga gelaya saaxiib haaruunow oo maxaa ku helay saaxiib oo aad saxa weyday xalay oo dhan reenkaada iyo rogrogaada ayaa fara badnaa waxaan soo xusuustay saaxiibkay haaruunow noloshaydii horeeye waayihii aan soo maray oo ah mid aad iyo aad u cajiiba bal saaxiib iiga sheekay wixii ku soo maray adoo mahadsan kolley waxa hurdada kuu diiday maaha wax sahlane saaxiib waa qiso igu dhacday oo dhabah oo adag markaan xusuustana si kale ayaa noqonayaa aygadaa saaxiib waan ku tuugaa ma jecel inaan ka sheekayo saaxiibkayga qaaligaaw saaxiib ma anaan ahayn walaalkaa maanaa xaqu lahayn inaan ogaada wixii ku soo maray bes iga dhe saaxiib xaq waad u leedahay waanan kaaga sheekaynayaa ee u samir waa qiso dheer oo ka bilaabmaysa yaraanteedii ilaa laga soo gaadho maanta qisada tan waxay tahay qiso aad iyo aad naftayda oo dhan ku ah xusuus gaara wadnahaygoo dhan ayaa boodboodaya mararka qaarkood qalbigaygu si kale ayuu noqonayaa habeenkii marka aan hurdo israahdo seexo jirkayga oo dhan kuleyl ayuu noqonayaa anigoo oo dhan waxaa noqonayaa maqana joogaa saaxiib noloshuna waxa ay noqonaysaa mid i gubta marmar ka dambeeya marka aan soo xusuusto sheekooyinka ama qisooyinka cajiibka ee noloshaydii soo shabahay saaxiib waayahay ii bilow barwaaqadu way isgaadhay qof waliba waxa uu dareemayaa isbeddelka sanadka iyo nimcooyinka alla ku manaystay deegaanka xooluhu waxay barwaaqa darteed daaqayaan deerka guriga sidaasi oo ay tahay roobka weli wuu da'ayaa dhulka oo dhani waxa uu noqday cagaar aad ka garan karto barwaaqada lagu jiro inta ay la eg tahay dadka iyo bulshaweynta deegaankuba waxay ku jiraan mahadnaq iyo inay ilaah ugu mahad shukriyaan nimcada uu ku manaystay nolosha oo dhammi waxa ay noqotay mid
mid fudud barwaaqa darteed. neefka xayawaanka duurjoogta ay qaato lama tabayo nimcada iyo waqtiga wanaagsan ee lagu jiro awgeed. muddo badan ayaa lagu jiray barwaaqa aan deegaanka horay u soo marin, waana la wada tarmay dad iyo xoolaba. kii hore u lahaa 2 halood iyo awr iminka way u laba jibaarmeen. waxa aad moodaysaa in ay marka aad deegaanka iyo barwaaqadaad u fiirsato in imaankaaga iyo maskaxdaada ku soo dhacayso heystii sayla ee xasan aadan samatar ku luqayn jiray iyo heystii kale ee beledweyn qaybo ka mid ah. webigoo butaaco, beeraha waraabsho, dhulkubaad ku jiifo, dhirta ubaxa buuxsho, badarkiyo galeydii laga tuuray baalko, canabkii bislaado, biladiyo cayaaraha lagu waabariisto beeluhu gu joogaan. naasir waa wiil yar oo weliba aad u da'yar, reerkooduna waa danyar marka loo eego dadka deegaanka kula nool. xoolaha ay leeyihiin ma badna tiro ahaan, laakiin waa ay tayo badan yihiin oo ay caano badan yihiin. naasir maanta wuu isla hadlayaa oo waxa uu qorshaynayaa sidii uu mar magaalo uu ku tagi lahaa, miyigana uga tagi lahaa. tii magaalo ahayd wallaahi noloshu dhib bay ku haysaa. waxaan mar walba maqlaa magaalo waa sidaa dadka waaweyn oo magaalada waanu tegaynaa maanta isle maalin walba dhagahayga waxaa ku soo dhaca in aan magaalo bal horta aan aado. waxaan doonayaa inaan go'aansado inaan aado magaalada, weliba waxaan doonayaa qof aqoon durugsan u leh magaalada markaan xoolaha soo xireeyo. heleeyaa wadigii shalay, heleeyaa harsan waayo, heleeyaa hila gaabkiyo, heleeyaa wadigii shalay, heleeyaa harsan waayo, heleeyaa hila gaabkiyo, heleeyaa hululaha galay. waan dhameeyey xoolihii geeli oo dhan waa xirayey, si fiican baan ugu hubsaday. marka hadda waxaan doonayaa barxadda inaan aado nimankii odayaasha ahaa ee meesha fadhiisan jiray shaaha. kulley meeshii bay imanayaan, ardaagii bay isugu imanayaan. duqii degmada inaan helo oo aan raadiyo oo aan meesha ka helo baan doonaya. bal meeshan magaalo la yiraahdo ayaa naftii keentay. waxaan doonayaa bal horta inaan meeshii magaalo la yiraahdo warkeeda keeno. haddii ay barhaali ka noqdo waxaan doonayaa inaan ka baxo magaalatan. bal horta marka ugu horeysa intaanan degdegin in aan marka hore aan raadiyo weey wax warbixin iga siiya duqa degmada iyo meeshaas kale halkaas laga helayaa. ardaagan aadayaan doonayaa aado wana ardaaga hadda aada. naasir waxa uu soo dhaqaaqay dhanka iyo meeshii uu joogay duqa degmada ama ninkii tuulada madaxda u ahaa, waxaana uu doonayaa inuu warbixin dheer ka siiyo magaalo iyo waxa ay tahay. waxaana uu tagay maqaayad ay wada fadhiyeen duqa degmada iyo odayaal fara badan, waxaana dhex maray sheekadan. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرقم محو شاق والله نود نيك المناصر با وسودوا بالارض بلغ دبا دغ بل فديسه با سو فديسه aad baan u fiican الحمد لله رب العالمين. والله wax soo daalay caawa dhammaan xoolii soo xiriirayo geelii baan sidii u rafanayay baan hadda soo sarooxay markaasaan sir balada ragaha caawa wixii ay golahay ku hayaan bal ka koob shaas soo qabo war balshaan qabsa bal الله عانه يقبل الله كان قبل قدر هيا ما شاء الله ورنيك انه دالن yahay waran xaaladda ka wada aad baan fiican yahay iga duru hota baalka sigaarka la yiraahdo iga baalkaas sigaarka ma cabbi sigaar ma cabti baalkaas isma aragna nog baalkaas waan ka soo jeedaan waa bahay way iga duceeyay odaygii ku dhalayna saasoo kale sigaarku war hadaba waa inaka wanaagsan waa ina qiic ka dheereeyo gees kaga baxaya raliga soo taago weeyaan waa sax weeyaan waa fiican wali waran wadanka ka waran maxaa soo kordhay war wadankii caradi waa barwaaqo roob baa daay heeri waa kala gacday geelihii arigii lodii caradi barwaaqo
barwaaqo lagu fadhiyaa beerihii si fiican bay sanadkan u baxayaan alxamdulillah wax dhibaato ah ma jiraan xanuunaya sanad ka wanaagsan ma jiraan ma jiraan bal adii reerihii iyo geeliyii ka waran bal adigu waran xaaladda ka waran maxaa cusub alxamdulillah ma sha Allah degel jira waa taqaanaa inuu geel jira gaari waayo si garootiyo anagu waa iska jirnaa waxaan iska jirnaa marka waxa weeye in geel jira maantii oo dhan ayuu daalayahay hadda ay soo gataas dhacay warna meel kama hayo idinka u baa magaaladii iyo wararkeeda duq degmada kulli adaa magaaladii adaa ka warhaya iyo xaaladaha kale ka warhaya marka war xaaji waa sii baxaya naasir qeyr baa idin rajaynaya anigu sii baxaya insha Allah assalaamu alaykum wa alaykum salaam nabaday salaam warduq assalaamu alaykum wa naasir aad baan u fiicnay alxamdulillah wallahi maanta saan jaaniska kuugu helay waliga Allah ma jecleen inaan ruuhantii inaan ku horfariistaan rabiyo aan in badan basaasan ku raadin maxaa soo kordhaaday bal ii waran adeer wallahi waa fiicanahay barwaaqada lagu sugayaan macadeeda jamteeda jaban alxamdulillah wax siyaada ma jiraan laakiin waxaan kaliya u rabay adeer inaad bal hadii in yariga jaahil bixisid jaahil baan ka ahay maxaan ka jaahil bixiyaa tii magaalo ahayd ayaan rabaa bal hadda inaad sawiriga dadku waxay magaalaan ku socda maalin walba abahay wuu sii socdaa waa soo socdaa dadkoo dhan baa tagi midda kale ninkii soo garamaysid ina xasan ahaa Abdullah Hasan soo garamay Abdullah waa ninkaasaan isku geel jiraa waliga ahaan jirnay isku daaba hadal isku gubaad dhalatay ninkaasaan saaxiib wahay mar kale Ilaahay faras qayb u soo furay magaalo buuqa markii uu magaalada galay ninkaasi waxa u daraad wadarkaysi markuu gaariga watay oo dadka watay oo buuga watay oo walba watay oo ninkii hawada maray marka magaalada maxaad ka doonaysaa adeer waxaan doonayaa anigu reerkooda ogtaa waan u weynahay nin reerkayga dad cid magaalo kaga jirta ma jirto wax mustaqbal leh ma jiraan dadkoo dhan aabahay wax ma qori karo wada ogtahay anigu wax ma qori karo hooyadii wax ma qori karto waxaan rabnaa bal wax magaaladii bal qof inuu noo galo marka reerkayga in badan waan ku isku day aniga waxa ilaa inaan yar baa tahay oo wad yar tahay wali maad weynaan maad laba gubiyo waxa sugtay adeer ma de yaraanta ma aha waxa la yiri raggeelowda jir soo wada mar baa la yiri ee Soomaalidu ku maamaada marka waxa weeye magaaladii qasab qofku ama hayraad ama haweenaadi uu iman doona marka taladana maad ku dhalatay mise adeer ma yaanay ugu dhalatay soo waa mid lagaaga sheekeeyay ma adeer bal magaalada sawir baa rabaa magaalada maxay tahay magaalo horta bal waa magaalo waxa weeyaan dadkan miyiga markii hore dadku miyiga deganaayeen kadib deetana dadkii miyiga deganaa ayuunbaa magaalada u guuray sidaad adigu leedahay maanta anigaa doonay inaan magaalada u tago ayuunbay qaar kaaga horreeyeen saas magaalada ku bilaabeen markaa magaaladu waa tuuladeennan oo weynaatay oo kale dee markaa qof kastaaba si magaalada u mustaqbalkan lagu sheegayo waxbarashadan iyo shaqadan iyo gaadiidkan waxa dadku xaga ka keenaan barorta taa jaayidis wallahi taa dhayan lagu ma gaaro marka hore waa inaad qalin buu qaataa iskuul gashaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad markaas shaqo fiican heli karaysaa oo mustaqbal yeelan karaysaa marka adiga hamigaagu muxuu yahay waliga waxna ma qortay waxna ma akhriday waxna ma akhriday laakiin mustaqbal baan leeyahay qofku marka uu yiraahdo mustaqbal baan leeyahay waxbaan doonayaa inaan barto waad fiican tahay ilaa heerka ku fikraysid heerkaasan doonayaa aabihiina wuxuu yiraahdaa inaan yar u baato hooyaday waxay tiraahdaa waa la rabtaa hooyo way la rabtaa meeshaasina waa meel dib badan wadadaasi haday mid baan ku sheegay marka hore intaanad bixin waa inaad aabaha la tashataa aabaha ayaa ku ogolay ma bixi kartid si fiican waayo habaar buu adoo ku habaaro wadaduna waa wada xun wallahi waa mushkilad berle waxa la sheegay nin libax ku cunay wadada kaliya ma bixi karsid waa marka koowaad waa in cid magaalada tagaysa magaalada tuuleeda way imaadaan rag magaalada ka yimaada si fiican marka waa inaan kuwa mid kugu daro laakiin se kaliya hadaad baxdo magaalada tuuladu waa markaad ka baxaysaa si socoto kayn baa jirta libaax baa la sheegayaa xayawaano kale la sheego dadka oo halisa dadka cuna marka kaliya marna ma bixi karaysid adaraad bad maadsantaa wallahi tala fiican baad siisay maanta waa maalintii mustaqbalkayga aan dhisan lahaa ilaahay idankii waxaan doonayaa inaan mustaqbal wanaagsan iyo future wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan iyo tacliin insha Allah inaan isarki doono ilaahay idankii wixii niyadaada ku jira waad helaysaa aad baad maan iyo wanaagba magaalaha hadaad tagaysana waxa la yidhi hadii magaalada wada ilaa aad isha la iska ridaa waa si fiican ma fahantay oo ilbaan iska ridaa miyaa ilbaa iska ridaysaa si fiican ilmi amse macnaha dhaqan miyaa ma waxa ka wada hadii magaaladu shaqaysato dadna waa inaad shaqaysato weeyaan il iska ridi maayo ilmi iska ridaysaa waa maahma soodigi maskaxda maxaa ku dhacay baayna qol uu hayo ma yaduqi degmada taho taraad horta waxa weey tala fiican weey qof kastana la talisid waa fiican tahay laakiin ishiga dhabta hayd baan moodaa ishiga dhabta hayd waa lagu maahmaahaya
waxa looga jeedaa magaaladu meel xun iyo meel fiican buu leedahay alle hadii kale hadalkaas markaas meesha xun aad marad meesha wanaagsan aad martid aad balwad baa jirta waxyaabo xun baa jiro meel magaalada ka jirin si fiican ma fahanti marka xumaanteedii wanaageedu badantay inaad wanaageeda ku dadaashid insha Allah reerkiina inaad ilaawin si fiican daad marmarna soo gaadhid fasaxo kale aad insha Allah ilaahay idinka khayr badan isku okay waa assalaamu alaykum wa alaykum salaam dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad sheekadii halkudhigeedu ahaa dhimale ha-ooyin farsamada hagarla-aaneed waa cabdulaahi bakistaani anigoo yuusuf garaadaha ayaa idinla socodsiinayay intaynu dib ugu kulmayno qaybta labaad ee sheekadan waxaynu idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.